dalkeena markuu ku soo duulay daalinkii dagaalku markuu ka dhacay dalalkaynu naan diricyadeenii markii dawlis lagu xidhxidhay degmada lagu laayay inago dushooda tumay haddii laylaha wayarliigan ka dhoofaya bulshada ku dhaqan degmada Sheekh ayaa waxa ay maanta hambalyo u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana waxa ay taageereen khudbadii taariikhiga ahayd ee uu dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka jeediyay shirkii Djibouti ee wada hadalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo arintaasi ka hadlayana waxa ay yiraahdeen magacayga waxa la yiraahdaa Ali Jaamac Ibrahim waxaan ka mid ahay odayaasha degmada Sheekh waxaan taageerayaa go'aankii adkaay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qaatay shirkii wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland taasoo uu soo hordhigay miiska wada hadalka taasaanu taageeraynaa anigoo ka mid ah odayaasha degmada Sheekh waxaanu taageersanahay go'aanka madaxweynaha waayo waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ka hambaliyaynayaa dawladda Soomaaliland ee ka qayb gashay shirkii Djibouti uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay go'aankii aad iska taagtay maxaan ku dhahaayay mowqifka iska taagtay ayaan anaguna ka taaganahay oo kugu hambaliyaynaynaa haddaan dadweynaha shicibka Soomaaliland ee Sheekhan u nahay kun jeer baanu ku leenahay hambaliyo waxa weeye mowqif wacan baad ka taagtay fikrad wacan baad keentay arrin aad u wanaagsan oo noo qusfucnay baad halka kaga soo maxaan ku dhahay kaga soo hadashay annaguna haddaanu nahay shicibkaagi waanu kugu hambaliyaynaynaa waxaan ka hambaliyaynayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Cabdi waxaan u hambaliyaynayaa shirka uu galay ee uu ku guuleystay baan ku hambaliyaynayaa anigu waxaan ka madahay dadkii calanka maalinta qaaday 100 jir baana kuwii foodka ugu riday baana maalintii calanka la qaaday waa taagna maantana xabar anagu dooni mayno waxay leedahay waxa dibacsanataba marba dirirku horaa mar uma daruuraha nafsiga lagu dul keenaa darmaan curatay waa lagu farxiyo waaga daalacay qalmihii ducguray waa kuwa soo dunuunucay dambarkeeda maandeeq hadda doobi loo culay danabada horseediyo haddaan dirirka loo baaqin dayaxa iftiimay iyo haddaan dooga lagu guuray hambalyaynayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shirkii wada hadalka Soomaaliya ee ka dhacay dalka Djibouti ayaanu ku hambalyaynaynaa khudbadii dastuuriga iyo masiirka ummadda matalaysay ee Soomaaliland waxaanu halkan hadal badan ama lagama buuxsho dad badan baa qiirooday dad badan baa ooyay waxa weeye meel bugtaba qolofta kolba laga qaadaya dhawaaq dheer waxaanu ku leenahay beesha caalamka waxaanu dhawaaq dheer ku leenahay inay itiraafkana siiso oo 30 sanadood baa ka soo wareegay maalintan xornimada qaadanayno calanka taagan waxa taagan raggii u shahiiday waxa jooga agoomi waxa jooga raggii u dagaalamay ee dhufaysyada ugu jiray u raamaystay waxaanu leenahay beesha caalamka oo si ballaaran uga codsanayna inay itiraafka noogu dhawaaqdo annaga ayaa naga walaaltinimada doonayna xamar la qabanay annaga la walaalowday waxaynu uga bedeleen gumaad diyaarado madaafiic infantry taangi wuxuu weeye 60 ayaa dadkii waxna curyaamiyay waxaan laayeen وفيصل آدم إسماعيل تلفزيون كقرن كسومالي لان دقمة الشيخ